wali waxay noo sii socota wakiilada ururada oo inoo fadhiya meesha insha Allah markana waxaan u yeeri doonaa mudane garaad maax oo ah xubin golaha dhexe ee ururka ONLF ku soo dhawow fadlan بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا لمان كسوق قيبغلاياشا مدني iyo marwooyinba waxaan si salaamayaa oo kale ururada mucaaradka dhamaan si u dhan yihiin muhiimku waxa weeyaan oo maanta laga wada hadlayo dibka ka jira arradii aan ka nimid aan u nasab sheeganaynay aan Soomaali ay lahayd dibka meesha yaalana runtii waxa weeyaan wali wadadiisi waxaad moodaa in la garab marayo waayo Semberi waxaan nahay dad ruuxay doonayaan ruuxii ay dawladda Itoobiya doonayso loo keeno qaata haddii aan nahay dad Soomaali ah oo midaysan nama marteen taas rag iyo dumarba haddaynu nahay dad midaysan Soomaalina ninka jooga ku dhashay Kenya gudaheeda iyo kuwa dhashay Xasayri Raaskamboodi dhaxdooda waa Soomaali amxaarku meel biinoo wada taagan yahay taas inaan garanana wali waan garan laanahay anu taas waxaan ku qiyaasayaa inay tahay tababar bay wax kasta u baahan yahay tababar in la tababaro ruuxa bini'aadamka ummadeena wali qubmayna dhihin ama looma diyaarinin sida ay midnimada oo u istaagi lahaayeen rag iyo dumarba waayo midnimadu waxa weeyaan waxay keenaysaa in aad ismaqashaan in runtii nabadgelyadu iyo barwaaqadu way isla socdaan barwaaqada iyo nabadgelyadu wax isla socdo weeye barwaaqo lama helo hadayna nabad jirin meesha barwaaqaha sugina marka waxa weeyaan nabadu marka la leeyahay Itoobiya intaas oo qarnimo dagaal inaga dhaxeeyay iyadiiba kolba ruux inoo soo diyaan Cabdullaahi Maxamed Saacdi iyana jira cid aan ahayn oon dooranay oo meel inoo taagan ma u jirin ilaa iyo hadeer haddana halgankii nabadda keenay ee u istaagay ayaa la doonayaa in ceel lagu rido marka waxa weeye taariikhdana wuxuu ahaa qoryo isku dhiib ilaa Axmed Gurey Said Cabdulla Xasan Maqtal Daahir 74 macnaheedu ilaa iyo hadeer ilaa iyo 64kii 77 ilaa iyo hadeer halganku soo socda oo alfay waday runtiina waxa loo waday waxay ahayd taariikhda ummadda Soomaaliyeed oo dhan ma ahayn ama beel ama qoys ama cid ma ahayn waxay ummadda oo dhan halgan u diyaarsan Soomaaliya lagu ilaalinayay Soomaaliya haduu halgan ka jirin Soomaaliya si wuxuu ka sameeyay Itoobiya ka sameeyay ama Tigray ka sameeyeen wax ku xun baa ku imaan lahaa marka waxa weeye horta taa inay qub ina dhahdo weeye anu waxaan oran lahaa oon dhihi lahaa fikradayda in loo diyaariyo dadka dhalinyarada ee cusub loo diyaariyo in loo tababaro dalkooda iyo ummadooda waxay tahay tiibaan loo tababaraynin ninka waxba bartay la leeyahay xaqu wax ku bartay ama Talyaani ku bartay ama Ingiriis ku bartay ama Amxaar ku dhax bartay yaa ninkan yaa seminar siiyay yaa wax u sheegay wadankan inuu isaga leeyahay hooyada joogta inay hooyadii tahay soo ku ogaan karaa neefka ariga ku nool inuu neefkiisa soo ku ogaan karaa macna waxa weeye ummadii lama diyaarinin wali ma diyaarsanin kullukum wax diyaarsan baan jirin san aniga fikradeedan ka hadlayaa marka waxa weeyaan abaarta iyo dhibaat midnimaduna taas bay ku imaan kartaa in midnimadeena aan midayno Soomaaliba hadana midda kale waxaan dhihi lahaa runtii markaan u hadalo abaartan iyo arintan laga hadlayo abaartu waa wax jira weeye waana la arkaa dibadda iyo gudaba waa la arkaa dawladdu ma arkilaa maamulka meesha ka jira ma arkilaa lawla hada dadka horta muu diyaarsan dadkan wasiirada ah in meesha madaxweyne ilaa wasiir iyo nin kasta jooga diyaar ma u yihiin ummadan iyo ummadooda tahay ani maanta dan mas'uulahay rida ku dhimanaysa ee gaaroodi dambigeedana la saaraya oo la qabsanaya marka inay taa horta ogaadaan baa muhiim mala oo ummadaas marka waxaan dhihi lahaa ummadda in loo bisleeyo oo dib loo noqdo
يا وناكسن إثيوبيا waxaan ka sugayno oo hadda jira ma jiraan marka waxaan dheerahay anigu oo soo dhaweynaya mar kastaba ururadu inay dib isku noqdaan iswarsadaan war dhiibaal un kuma jiri karnaa maxadan inoo ah halkan laga bilaabo meel kasta laga bilaabo maxadan ah danta in laga hadlo weeye semberi aniga hadda maanta geysaan oo amxaray soo doorato de amxaray intan doonayaan la soconaya ormo intan doonaan la soconaya marka waxa weeyaan horta hal isdiyaariyo hal loo diyaariyo dadka oo hal loo sheego ummadan way hadan seminar leysina wax la tababarin waxba la ii sheegin oo meel baan ka soo baxay waxbaan soo bartay aan wato buugaygi ninka aniga waxay soo barin baan eegayaa intaas weeye marka waxaan leeyahay runtii waa wax loo baahan yahay inaan u istaagno ummadeena dhibkeeda iska dhaaf wax kale ee webigiiba biyo yareeyay marka dhibka meesha taagan dawladdu inay arki laadahay hamoodina Ethiopia inay arki laadahay ama abiin ninka wax ka sugay isaga abad nooc kala abii ninka wax ka sugaya ka daran Tigreega tababaray xaq u geeyay amxaaradu sheeganay xaq u geeyay idinka xaqay ka sugaysaan marka aan wax ka soo jeeda meesha ma arko runtii waxa weeyaan in u istaagno midnimadeena iyo inaga waxa danteena danta ummadda Soomaaliyeed in u istaagno inagoo jamaca oo isku xidhan aan u wada istaagno taasaan meel ku gaari karnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته